sagaal ruux ay ku jiraan carruur ayaa ku dhimatay tiro ka badan 2,800 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ay hal mar wada qarxeen qalab isgaarsiin oo lagu wada xiriiro fariimahana ay markaasi isugu gudbiyaan qaybo badan oo ka mid ah dalka Lubnaan sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi. dadka dhaawacmay waxaa ku jira safiirka Iiraan u fadhiya dalka Lubnaan Mojtaba Amani. ururka Xisbullah ayaa weerarka ku eedeeyay Israa'iil iyagoo sheegay inay ka argoosan doonaan waxa ay ugu yeereen weerarkaasi mid dembi ah oo gardarro ah. Xisbullah oo ay taageerto Iiraan ayaa waxa ay sheegeen in aaladahaasi ay leeyihiin shaqaalaha qaybaha iyo hay-adaha kala duwan ee Xisbullah waxaana ay xaqiijiyeen dhimashada 8 dagaalyahan. militariga Israa'iil ayaa iyagu dhankooda diiday inay faallo ka bixiyaan amaba ay ka hadlaan waxa dhacay. saacada ka hor qaraxyada golaha wasiirada amniga ee Israa'iil ayaa sheegay inay markaasi joojinayaan weerarada Xisbullah ee waqooyiga dalkaasi si loogu ogolaado in si nabad ah ay markaasi dib ugu soo laabtaan dadka ka barakacay aaggaasi. ilo ku dhow kooxda ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in dadka la dilay ay ka mid yihiin wiil uu dhalay xildhibaanka laga soo doorto Xisbullah Cali Camaar iyo gabar 10 jir ah oo uu dhalay xubin ka tirsan Xisbullah oo ku sugnaa Bekaa. ra'iisul wasaaraha Lubnaan Najiib Miqaati ayaa sidoo kale ku eedeeyay Israa'iil qaraxyada isagoo sheegay inay u taagan yihiin xadgudub ba'an oo madax bannaanida Lubnaan iyo dembi marka loo eego heerarka oo dhan. Maraykanka oo ah saaxiibka ugu dhow ee Israa'iil ayaa beeniyay in wax lug ah ay ku leeyihiin waxaanay ku booriyeen Iiraan inaysan sii kordhin xiisadda. isku duwaha gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Lubnaan Jenny Hennis-Plasschaert ayaa cambaaraysay weerarka oo ay ku tilmaantay mid markaasi aad walaac u leh.